أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد درسينا وكيا فرتني التضباط وكمده قرآن كريم كتفسير كيسي وحين سو قارني سورة المائدة قرآن كور مركا لغا سو تريا دنكا انو كنمد يا فاتحة وسورة الشناد وقرآن كمده آيات كيدنا وابغل يا لباتنا آيات قرآن كوحو قيب سما مكي يا مدني وقرآن كي مدينة كسو دقي وحال الشيغا سورة دي ugu dambayso quraanka soo degtay inay tahay suuradii ugu dambeeyo quraan oo soo degay inay tahay sida awgeed bay culimada qaar kood waxay mareen 120 ka aayadood ay ka kooban tahay hal aayad oo mansuukh oo kuma jirto kulligeed waa wada muhkam maadaama ay tahay quraanka wixii ugu dambeeyo soo degay qolyana waxay leeyihiin laba aayadood baa la soo helay wax mansuukh oo la nasakhay labada laftirkoodana waa la isku haystaa inay mansuukh yihiin. ابن تيمية وحو إشارة أجمع سورة في القرآن سورة القرآن كأوجو جمعيس بدن أو كل من بدن حق فروع الشريعة إنه سورة تهيج حراشة حارانتا أمركا نهيجا سيدا أوجد بعلماء وحي الشيئين سجال يلواتن سجال يتبان قضب وسورة المائدة خاص لا تهي وسورة القرآن كورنتي إسنشرين سجال يتبان قضب badankooda 19 ka qodob 10 kana caaw ka mid noqon doonaan 19 ka badankooda qaybo ka midna waa gaari doon raaxam iyo wasiilo iyo ayagoo laga hadlahayo laakiin badankooda caawan arki doona insha Allah taala. طيب ilaah wuxuu yiri bismillaahi ilaahi magaciisa ku bilaabanaya Allihi arrahmaan naxariista guud ahaaneed naxariisanayay Allihi arrahiim naxariista gaar ahaaneed naxariisanayay. يا أيها الذين آمنوا حق الرميو أوفوا فليا بالعقود بلمضة وحلت وحل إذين بني لكم إذنك بهيمة الأنعام ميرانك إن حولها قوة ميرانك بهيمة الأنعام حولها ميرانك وضع إلا ما شيء ما هنا يطلع الآخرين يا عليكم دشينة إنه حرام يهي شيء لصوص عضا والآخرين دون الذين شوق دون ما هنا غير محل الصيد ugaarta waxa weeyaan kuwa xalaalsanaya qeyrkooda xalaatihiin wal xalantum idinkuna xurumunatihiin kuwa xurma leh in allaha alla yaxkumu wuxuu maamulaa oo xukuma ma wax allaala wixii yuriidu uu doono. aayada kaliya waxay ka hadashay maadaama ay niri furuucu shariica qayb badan oo maday ka hadlaysa iyo ahkaam badan koow waxay ku bilaabatayba amar iyo nahyi iyo wax la iska reebayo iyo wax la isfarayo. إلهي دتك مؤمنين تابوا رواق يا أيها الذين آمنوا علماء قاربا وحي هذا القرآن كميل كسود كواركت يا أيها الذين آمنوا ومدني وقرآن كمدينة كسود دقي مركز سود أركت يا أيها الناس ومكي لكن وسيدة غالب كاهي مرارك قارك بعكس وضع لكن ساسا غالبة دتك أهل الإيمان كوحل أوفوا فلي بالعقود هشيسيا يا بلمض بلان كإلهي كاقادوا إن هذا سقع عبداي والشركة كديرتها كصبح ballanka bani aadamka aad la gashid ka soo bax ballanka waxa weyn heshiiska ummad kale aad la gashaa ka soo bax aqdigii iyo zawjkii iyo heshiiskii guurka ahaa ka soo bax awfu bil uqud ballamada fuliye qodobkaasi waa qodobka koobaad oo aayadani ka hadashay dhowr qodob ay ka hadashay. qodobka labaad waxay aayadu inoo sheegtay uhillat waxa la idin baneeyay lakum idinka bahiimatul an'am al an'am waa ariga iyo geela iyo lo'da بهيمتنا وامحي وشيئا هذل ما يران ما هالله بهيمة الأنعام أنعامت يحول نبعولي ذا الذين حلالي أرجع يجيل يلوذ مركو وينو حلال وحكم كلباد أيد وإك هذا الشيء حكم كصدحات أيد بهيمة الأنعام بالذين حلالي وحي إشارة سورة درس كذا وحكو جاري دونا قل يجعله حولها قيبة كم إذا إسك حرمي الله أرنا يهش النوع عسل لما تابن كرو النوع عسل لما تابن كرو الله النوع عسل إلهي مركو وحول كل وضع ذين حلال
qodobka labaad kaas weey qodobka saddexaad waxa weeye xoolihii la idin yiri waa la idin xalaaleeyay baa waxa la yiri illaa ma kiiba la idin xalaaleyn yutla la akhrinayo calaykum dushiina oo muxuu yahay waa boga soo socdo xurimat calaykum almaytatu wad-damu wal-lahmu al-khinzir xoolihii xalaashaha bir xalaal hadaysan ku dhicin de xalaal ku noqon maayaan wala fahmo qodobka neefki geelaha iyo ariga hadadan bismillaah ya allahu akbar iyo wadan kooran ma ku xalaaloobayo illaa ma yutla calaykum wa xurimat calaykum oo soo socota waxa la akhrin doono soo socda maahane xoolihii asalkooda idin banaana sifa sharci hadaydan u banaysan idin banaanaan maayaan ما قضب هيسان صدق قضب صوما أوفوا بالعقود كو أحلت لكم الأنعام أحلت لكم بهيمة الأنعام لبو قضب كصدق هذا حوله إذن حلاشها باقيبة كم إذا الله إذن كحرم حوله هو إذن حلال لكن صفة حلال إذن كوي هنا صفة هدي لوايا حلال إذن نقول مايا إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرمنا ومسألة كلته غير محل الصيد وقارت كوا حلاشنا يا غير كود حالاتهن والحال أنتم بدونكم حرم أتيم كوا حرمان وما حي مر هذا حرمة الحج أما عمره إن أد أقارستي أقارتي حرمك وكا حرام قلب كمل فهم هذا حج عمره هذا حرام لكن حرمك إذا كشوكتي أقارت حرمك شوكتها أينا وكا حرام لما قربا هذا حاج تهي يا هذا معتمر تهي يا هذا أنا هينبا حرمك وحلا هذا وحرمك أقاده حرمك وارت جوجتا وكا حرام وانتم حرم كورن هدانا حرمك جوجين وكو حلال هدانا حرمنين وكو حلال وغارت كليا لغا هلاي دي خوليه ايغو كوما بسي جيران با ايغونا ان الله يحكم ما يريد الهي وحو دونا ايو حكمايو وحبو كو حلاليي وحنا وكا حرمي عقودي بكو شيغاي او وخي حلاشها بكو شيغاي او وخي كا ريبنا بكو شيغاي او حرمك يوحي قصيو كو شيغاي لبا صدر بان لو دميي وخي ودان يحكم ما يري قف انت سمين كران الله لما ارك يا ايها الذين كوا امنوا حق الرميو اوفوا فلي بالعقود هشيسيدا يا بلمده وحلت وحا ليدين بنيه لكم idinka بهيمه الانعام نمعوليدا ما يرانka ayaa leedin baneeyay illa ma shay kiima hana yutla la akhrin doono calaykum dushiino aayaadkeedu ay soo socdaan غير محل الصيد ومسألة كلام مدح بنان غير محل الصيد كوا أغارسك حلاشنا يا غير كل حالاتهن والحال أنتم يدينكم حرم أتين كوا حرمنا لا يدين ما أقول يدينكم حجك حرمان أما عمره أغارتي حجك إيوه حويان عمره ده ماله هذا شوكت ماله لو عمره يستوي لو حجيو إن أتكو أغارستي لما أقول إن الله ألا يحكم وحو ما ملاي حكمه أو سمياه ما وح الله لو وحي يريد وضانه يا أيها الذين كوا آمنوا حق الرميو الحمد لله يهديكم الله سبحانه وتعالى إلهي بأمدي سمؤمنين الله يا ضمدي سوح لي يا أيها الذين كوا آمنوا حق الرميو لا تحلها حلاشننا شعائر الله انتهاك شعائر الله إلهي شعائرتي سئن لوحد قد بها حلاشننا ولا الشهر بشينها حلال صننا الحرام حرمة لها إن تكون حد قدبتان بليه حرمة لها ولا الهدي حوله هديها حجك اللو ودي أو وح علامة أستان لهينا ها حلال صننا ولا القلائد كوي حجك اللو ودي لكن كوشا يوح القنت اللو قليو العالمية أيقنا ها حلال صننا ولا آمين كو أقصدي البيت كعبد الحرام حرمة لنا كواس حد قدب كودا أيقنا ها حلال صننا يبتغون كواس آمينتا يا حالي دل بيان فضلا ديراد ومن ربهم ربي وذا حقي كاهضي والرضوان الرالي أهانشو وإذا قرت حللتم الحلالودان محاد كحلالودان حجك أم عمردي فاسدادو وغارسada markaas ugaartee tii hore la idin kaga soo reebay soo garan maysan غير محل الصيد la yiri waa idin banaanta mar hada xajka maasha xajka dhameysata xajki umradii meeshii dabcan xaramkan aad ka tagtaa ولا يجرمنكم يينا idin ku xambaarin شنآن قوم قلن عيب كود أذو قبطان شنآن وكرهسي إن عيب أذقلوا قبطان أن سدوكم إني إذن كهر استاجين عن المسجد مساجد كي الحرام حرمة لها نعيب أذو قبطان كواس ييسن إذن كوحن بارن أن تعتدوا إلى الحد قدبتان وهذا ما تنتاس وتعاونوا إسوك الميست على البر وناج يوتقوا الله كعبسك ولا تعاونوا هيسوك الميسنين على الإثم الدنبي والعدوان حد قد واتقوا الله الله كبقى إن الله ألا
شديد العقاب عقاب كيسو ميدو درن yahay weey ayadan wax kaan badan bay ka hadash ahkaamta ay ka hadashay waxa kamid ah shacaa'irta ilaahay oo muuqato daahirka ah diinta islaamka daahirka ah oo muuqata in lagu xad gudbin oo la xalaashan waxa kamid ah waxyaalaha shacaa'irta ah xijaabka iyo garka iyo waxyaalaha khasaa'ista islaamka oo waaweyn in lagu xad gudbaa horta ma banaana ayadoo diinta oo dhan banaaneen haddana tan waa ka sii xaq jirta waxaan kaloo banaanayn الشهر الحرام وبلها حرمة له ذو الحجة ذو القعدة وحويان محرم رجب بلها حرمة له أيضا كحد قد بيننا حرمة ضميلها كقد عيننا صدح وحوي حولها هديها الله بقى قيب سما لبضع منها تابننا الهدي وامحي حج حوله لوكحي لكن وح علامة عن اللهين حولها ولا علامة دي كروس كامل لقصرة وحويان قانئي وحبال لقنت اللوجلية wixii marka caadi oo aan waxba lahayn hadi way qalaa'idna waa maxay luqunta wax loo galiyay labada qayboodba maadaama xoolo ilaahi yihiin oo loo sadaqeeyay masaakiinta ilaahi dartiina loo sadaqeeyay xoolaha ku xad gudbinina ha dhicinina oo ha xadinina oo waxa weeyaan ha ku xad gudbinina oo ha silcinina waxa kale ilaahi xaramkiisa dadka u socdo u qastay aamin kuwa u qastay al harama حرمك دتك وقصدي عمره يا حج ولا قصدي يا خير وإلهي فضلجيس يا نحريستي يا رالي أهانشي سدلبية كواسنا كحد قد بيننا وحوضها كحضننا شدقويها ودياننا هادي بيننا وحويان باصبار هذا يا كعريريننا يا في سوينك هادي بيننا أيقنا وحكروا آيات دانو شيختي هدي لحلالوبه وعمره دي يا حجكي كي أذهبتي بعد ما يستيد حرم كينا أتكب حديد ugaartii hore laga xarimay waad ugaarsan kartaa wax dhiba male ilaahi inta markuu dadka u sheegay naxariista ilaahi cadaalada ilaahi waxa kamid ah wuxuu inooga digayaa qolyo dhibaato inoo geystay oo xaramkii inoo hor istaagay oo wax weeyaan balaaye inuu falay oo dadkii aad u dhibay qolyaha nicayb aad u qabtaan yeysan idinku dhalin inaad xadkii tilowdaan waxa loo ogol yahay qofku hal nabar hadduu kugu dhufto asaga ku dhufo laakiin hal nabar qofkii kugu dhuftay dad tira shan tooriyad baan gelinaya ama xabad baan ku dhufanaya hal masaajid buu ka hor istaagay markaas aad tiri wax allaala wax masaajid oo dhan baan ka hor istaagaya anna hal waduu ku istaag anna hal waduu istaag in marka nicaybkii aad u qabtay maadaama cibaado ka hor istaageen aad xad gudubtaa yeysan kugu xambaarin nicaybkaas nicaybka waa inuu xad leeyahay ilaahay wuxuu ina farayaa laba qodob inaan isu kaashano albirru wattaqwa albirru waa maxay albirru inuu taymi wuxuu leeyahay waa wax khayrka sameyntiisa ficil khayr wixii khayra sameyntiisa waa bir waa khayr la sameeyo wattaqwa waa maxay waa tarku ficil shark ficilkiisa inaad sameeysid sharba inaad iska daysid taasa taqwa maxay ilaalin waxa iska ilaalin wax shar sameynti baa iska ilaalinaysa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واحد أفير ستة آيات التقوى والبر إسوك الميست العدوان والإثم نها إسوك الميستننا العدوان يا الإثم محيهين إثمك كعام سن عدوانك إثمك ودنبي عدوان كنا واحد قدب قريب كم إذا دنبي جويه لما ضمننا لما أقرأ إلهي آيات وحكوك بجبيهان شبادو إن الله شديد العقاب إلهي إنه يها عقابتي سميدا يدرانت هاي وقفك أمر كيساس إلهي وشيا حي خلافه العقاب يا أيها الذين كوا آمنوا حق الرميو لا تحلوها حلاشننا شعائر الله إلهي شعائر تيسه يدين تيسه مظاهر تيسه موقال كذا حد قدب كذا اسك إلاليوها حلاشننا ولا الشهر بليهنها حلاشننا الحرام يحرمض لها وضح كل حد قال منه ديك هضادنا الشهر وبل لكن بلوه دم بهدل ولا كذا ولا الهدي هديجي يحوليه حجك لو ودي oo ariga iyo geela iyo looda kiila ku doonay ha noqdee kuwaas ayagana ha xalaashanin oo jidgooyaha u dhiganina walal qalaa'ida kuwi calaamadaysna oo ayagana xajka loo wadayna ayagana ha xalaashanina wala amina kuwa u qasdayana ha xalaashanina albayta baytka al xaraam ee xurmada leh ayagana dhiigooda ha xalaashanin oo ha la dagaalamin oo ha cabsi gelinina يبتغون حالي آمين تاسكوا آمين تلوير دل بيان فضلا ديرات ومن ربهم ربي وضع حقي سكاه وامحي وتجارو ضد مركي حجك تجارو عماشي حجك قتان خميس يبرافونا قناعسي ماشي جيستان با هكو بنانت هكو فايدي سنكرتا سورة البقرة كسومر
طيب والرضوان رالي أهانشنا أي دل بيانو أعماشا عند حجك إي عمرة إلهي إني كرها لقليان أي كدل بيان انت مركي لشيء إلهي وحو دبادقي وإذا قرتي حللتم أد حلالودان فاصطادوا أغارصدا مركز حلالودان أغارصدا معناها أغارصي وإدين بنايه ولا يجرمنكم يصندنكو حنباري شنآن قوم قولون عيب أدو قبتان درتيس أن سدوكم إن إذن كهر استاغين درتيد عن المسجد مساجد كي الحرام حرمد لها درتيد يسان إذن كو حنبارين أن تعتدوا إن إذن كو أيكو حد قدوتانو أما أدشان أما وحكا لأتسكو سميسان وتعاونوا إسوكا الميس على البر وناج وفعل الخير والتقوى الله كعبسك وحي حون الله ذكرها بكفو قاد ولا تعاونوا ها إسوكا الميساننا على الإثم دنبك يا معاصدة يا والعدوان عليتنكو حدود إله لا تلابه واتقوا الله إله كبغى وعقابك سيسكى إلالية وحنا إسكى إلالية سنة الطيعدان إن الله ألا شديد العقاب عقابك سميدو دريه ويان حرمت والله حرمي عليكم دوشينا الميتة بختكي يودم ديكي يولحم الخنزير دوفار كهيلبكي يوما شيء أهل لوجو رعي لغير الله الله عدان هاي وحي لوجو سودي به أسقى والمنخنقة تيعق سنتي أو ملكم ريك سنتين ولا إذا كهرب ولا إذا كحرمي والموقوذة تيلا جرع جوي والمتردية تي ملك صاد علي والنطيحة تيلا هرديو هرديدا كل متي وما كي أكلوا عني السبع دقاقة إلا ما كي ما هن ذكيتم أتجور عداء وما كي نوى الله إذا كهربي ذبيح لوجو رعي على النصب أصنام وأن تستقسموا إن تكون قيب دلبتان والله إذا كرهبي بالأزلاب قريها ذلكم كي الناس لصور شيغي فسق وفاسق نمو إطاعة كبح وحا لصور شيغي قفكي سمية اليوم ما أنت يئيس ويكغوستين الذين كوا كفروا قالوا بي من دينكم دينتنا ويكغوستين فلا تخشوهم أيها كبقيننا واخشوني أنا أيقبقوا إلهي ليها اليوم ما أنت أكملت وحان إذين بوحيور ما يستري لكم إذين كدينكم دينتيني وأتممت وحان إذين ما يستري عليكم دشينا نعمتي برواقضيدة ورضيت وحان إذين كغرى لنغضي لكم إذين كالإسلام إسلامك دينا دينهان فمن قفك الضر الله باتقليو في مخمصة باهي هاي صدرت قفك باتلو قليو مخمصة وقاتشو غير متجانف أصغر أقول لي حنا يغير كمد أقول لي حنا يغير كحالو يهل إثم ذنبي فإن الله ألا غفور الله دافد بدنوي رحيم أن حريص بدن آياداني وحي كهذا الشيء أرميها عن الله إن سورة دانو خاص بلاتهاي قيبة بدن وكمده جودهان وحي كهذا شهر تأفر قضو مركو هوري أفرتي قضو بغيب كمدنا واسيفا فايس وحالينا حرمي بختك شيء بختي معوني كرنو وحالينا حرمي ديجة وانقاري دونا ودم مصفوحا ديجة شمية وحالينا حرمي هلب كضوفارك وحالينا حرمي وحكستا وإلهي غير كسمك عيسى لغو قورعي أفر تاسبا وحرام أفرتي غيب كمده بالسيفا فهي بختي بختي مرارك غار كدوحو كوي ماذا نيفك إن لعيتشيو هذا نيفك عيتشيد أو سيدا نفتو كغبحضو هذا سيدا حلال كوغو نقول مايو ومنخنقه وكاس ونيف لعيتشي والعيتشي كان لباد waxa weeyaan wal mawquudatu waqiidka waxa weey waa neefka la ganac gooyo ul baad inta ka tuurtay baad wadnaha ku dhufat wadni ba istaagay uu dhaca hadaa tiraahdo waan qalnaya xaraam waay ganac gooyn saas xalaal kugu noqon maayo waqiidkaas marka waqiidku waa kaas weey طيب المترديه waa maxay meel sara xoolihi ka soo dhaceen baabuur buu saarnaa baabuurkii ka dhacay waa baqti meel buu saarna xoolo reer magaalo inta laga dhigo guri la saaray meeshii ka soo dhacay waa baqti almutaraddiya meel saru ka soo dhaco sidaas ku baqti asagana baqti weeyo xalaal ma aha an-natihatu waa maxay waa neef kala hardiyay sacba sac hardiyay calooshu ka soo rida waana baqti ma cuni kartid waa xaraan asagana طيب
intaasuba waa bakti dariiq sharciya maaha waxa naftu kaga baxday laakiin afartoodaba afartaa la sheegay haddii neefki intuu meel ka soo dhaco asagoo nool aad soo gaarto waa gowracan kartaa haddii neef intuu hardiya caloosha ka soo rido asagoo caloosha ka laalaada aad u timaadid xayaatu mustaqira waa gowracan kartaa kulli waxaa kaloo xaaraan ah wamaa akala sabcu neef baad inta meel uga togotaa bahal inta u yinduu nafta ka qaada te asagaa cunay neefka waa kaa bakti wamaa akala sabcu dugaagku wuxuu kaa cunaa asaguna waa xaaraam ilaa maa dakaytu maxaa loola jeedaa bahalkiibaa inta neefkaagii cunay baad waxaa u timi neefkii oo dhaawac liita ah waad gowracatay waa kuu xalaal ma cunitaanka bahalkuu xalaal kugu yahay mise gowracaaga gowracaagu xalaal kugu yahay ilaa maa dakaytum waxaad gowracataan maahane wamaa dubixa cala nusbi waa maxay wixii sanam loo gowracay haddaad doontid bismillaahi allaahu akbar dheh magaca alla ku dhawaaq laakiin markaad gowracaysid sanam haddaad u gowracdid waa xaaraam asaguna ma la fahmo qodobka bismillaahi allaahu akbar waxaa la mid ah waxyaalaha gowraca ah oo aan sharciga ahayn bismillaahi allaahu akbarna intaad tiri qof kale aad wax kaga raadinayso qabri qof ku jira wamaa dubixa cala nusubi soo garaya asaguna maaha wax laga hadlaya intaad xoolo qashid hilibkoodii masaakiin u sadaqee ama qofkaan dhinto qabriga ku jira u sadaqee ma wax laga hadlayo laakiin haddaabaad asaga wax kaga rabto asaga u gowracaysid arrinkaasu khalad weeyaan ayib waxaa kaloo xaaraam oo aayaddan ay ka hadashay wa an tastaqsimuu bilazlaami alistiqsaam waa maxay waa qayb dalab aslaamtuna waa maxay waa qoryo waxay samayn jireen soomaalidu hadda waa sameeyaan remigan ku arki jiray markay muraad leeyihiin beecshiruu rabaa inuu sameeyo qolyuu rabaa inuu la xiso wax ka guursado gabar meel maraysu arkoodo calmado wuxuu yiri taa aad guursatid ninbuu rabaa inuu sheer la noqdo waxa way xilbuu rabaa inuu isu sharaxo qolyo saaxiriin inta u tago faalka dhiga buu leeyahay faal ii dhiga faalka la dhigaya marka waxbay qoryay sameynaya qoryaha qayb kamid waxa ku qoran ifcal qaybna waxa ku qoran la tafcal qaybna waxba kuma qorna meel ba inta lagu rido la ruxruxo waa la soo daadina ifcal haday soo baxdo waa lagu guuleystaa abshirtaada waa la helay wiil isa sharax oo guuleysanaysaa heblo guurso wiilal bay ku dhalisay gabdho hebel wax ku darso oo ku faa'iidin ifcal awaamirta ayaa siinaya waa qori meel lagu qoray adigu ay wax ku qorteen waliba ifcal kii laa tafcal hadduu soo baxo waxa la may kaaga dhamaataa leeyahay hawsha haddii waxa soo dhacay uu noqdo midkii saddexaad aan waxba ku qornay waa ku celis doorasho ku celis markay jirtay waa lagu celinayaa ilaa ifcal ay soo baxdo ama laa tafcal waxa noocaas oo kala qof muslim oo mabda leh inuu ka dambeeyo oo maalin walba tafaalka noocaas loo dhigo wax loo cuudiyo dabaalnimo iyo gaalnimo diinka baxway waa kala qorituurku tan waxa weeye qorituurkaani waa wax caadi ah dadku iska qanacsiino caado iyo curfi ah xuquuq mushtarak ah oo ay dadkaanu isla leeyihiin isuna tanaasuli waayeen baa waxa ay u oranayaan waxaan ku qanacsanaha maadaama aan ku tanaasuli waayo anaad ii tanaasuli weyda xaqaan naga dhaxeeyo in loo inoo qori tuuro qof inoo qori tuuro qofka inoo qori tuuray wuxuu inoo sheegana waa caadi aan ku qanacayna marka asayba wuxuu leeyahay mesela qoriyo saddex soo qaadanay saddex qof aan isku haynaa mesela markaas laga yaabaa asagu qoriyo inuu calaamadsado asaga qoriyo calaamadsanay taas qori tuur ma galasho sababta gabadha adigu ma lihid waxa loo qori tuurtaa waa xuquuq la isla leeyahay mar badan ma soo faafayna waxa kamid ah safkiyo waxaan u nimid hal qof meel u galay ka banaantahay saddex nin baan ku soo istaagnaa ama laba nin mid kale kaga xaqnimo badan ma jiro aan galaan ir waad ii diiday adaa tira aan galo ma kuwa ogoli baan ir ama waad ii diiday waana naga wada dhaxaya safkaas ana ku tanaasuli waayo wala inuu qorrida oo waxaan isla leeyahay laakiin gabar islaamiyada garaarta ridayso aadan lahayn oo halka maraysa heblan u qori tuuranaya qori tuurkaas aan sii maayo wax jirana ma طيب إلهي القرآن كوحي نبري عاوت أن كفى يسنا هالكان اليوم يئس الذين كفروا من دينكم كوا قالوا بدينتنا وكقوستين مانت سوى قوستين آيات دانا واسنة قدام بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم نورشي سيسود دقيسة آيات كام وحين كهلا يسا قالوا واجه هرت الله برا تلا بضوا ويا قبين كو وحي قبين نبي محمد آيات كفراء بين كشيعة ضدك كهر كيانا عذر عذاب هوايو وكو قول دريستين مرك waxay is yiraahdeen taa hadaad ku guul dareysateen cid Allah la cid raacda oo gumaad wallaay
dagaaladii la galana ku guul dareysan waa lagaga adkaada mar haday diintii nabi maxamed inay dadka ka hor istaagaan ku guul dareysteen ummadii nabi maxamed inay kulli ka dhigaan waa ku guul dareysteen mar hadayba labada qodob dhacday ha ka baqinina aniga iga baqa sababtu waxa weeye raja lagama qabo waa mustaxiil gaalada iyo muslimiintu inay tay dagaalamaan muslimiinta nag laga dhigo adduunka dushiisa la ilaaha illa allah qof laga waayo oo gaal asaa ku dhamayso waa mustaxiil waa ballanqaad ilaah waxa kale oo mustaxiil ah qof muslima in la waayo iyo gaaladu inay wadanka saas wada saydarayso kulli waa mustaxiil mar haday sidaa tahay way dhici kartaa waqtiyaasha kamida sanayaasha kamida dhowr bilooda kamida inay xogaa ka caal sareeyaan oo ka awood bataan laakiin waligood inay ayagu siyaadada hayaan ma dhacayso hadda adduunka ayaga sheegtay inay hogaamiyaan Soomaa imisa muslim ku nool imisa masaajid ka jirta imisa xajinaysa waxa malaayiin waay waa fadl ilaahi ma soo afjari karaan marka waa ballanqaad ilaahi taasi marka ilaahi diintiisa asaga ilaasanaya dadkeedana asaga ilaalinaya wuxuu ilaahi ina bariya al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ufirsu akmaltu lakum diinakum diintiinaan idin dhamaystira diinta yaa iskale allah maxaa inaga leeyahay marka idinka iskale diinta loo leeyahay waa sharaf lagu sharfay qofkii diinta haysta adaa diinta iskale hayso wa atmamtu alaykum ni'mati ni'mada laba u qaybsanta nicmo mutlaqa ah iyo nicmo muqayyada ah nicmo mutlaqa waxa loo jeedaa waa nicmo sii deysan waana midda sacaadada iyo liibaanta abadiga ku tusta waa qofka islaamka iskale lama wadaago nicmada muqayyadka waa maxay adduunkan intaan joogno caafimaad baqada gaaladuna waa caafimaad qabaan Soomada arag waa dhalaysaa way dhalayaan waa shaqaysanaysaa way shaqaysanayaan xil baad qaban iyo mansab iyo jago way helayaan uu ka qurux badan yahay ka caafimaad badan yahay nicmo ilaahi buu haystaa laakiin waa nicmo muqayyado intuu nool yahay maalinka naftu ka baxdo cadaab sarmadiyo abadi u galay ama qofka muslimka intuu nool yahana nicmo haduu dhintana nicmo waa nicmo mutlaqa marka midaas akhriya adduunba طيب ilaahi wuxuu leeyahay waradiitu lakum al-islaam diina diintaas ayada ah ayaan raali idin kaga ah ilaahi wuxuu raali kaga yahay hogaan ka dhigo marka famanidurra fi makhmasatin waxyaalaha xaraamta ah oo waqtiga soo garanmaysaan oo la xarimay afartaha almaytatu wadamu walahmul khinziri wama uhilla li ghayri allah bi soo garanmaysaan afartii qodob buu ilaahi wuxuu leeyahay famanidurra qofkii loo dhibaato galiya fi makhmasatin gaaja dhexdeed gaaja haysa darteed wixii laga xarimay inuu cuno qofkii loo dhibaato galiyo غير متجانف أسقون أولي حنين لإثم دنبي أو معصية معصية محن نقول كره أذو كسو هلي كرسيجس كعانة إنها كسو جت طلع عها يستبا واحد ترجع كان نفطه يده بحسايو كم استريد بختي يلان عنا يا مضافر متجانف لإثم بات هذا دنبي أنا أقول لحظة صوت العجنة واضح يستا ماشي أنا عنتا طالع واحد لقاه الله يمرك وقف له دي بتجري واحد كلنا وايي مركز وإذا حتى مركز هيش كسر هي قادنا مركز على شكل سكت أرسل إلى مير البوات الله قفك النوع عاصة فإن الله غفور إلهي ودافع يمحو ودافع وحو عني الله ما هيستو ولا فهم هدو بخت عني هدو ضفار عني يا والله مد هدو سن wax kale helaynin hawshaasna ay xaqiiqo noqoto faman dur ama xabsiha ku jiro ama balaha cayrsato ama meel kaliya ha joogo iska maro waa isku wada mid faman dur soo galaya حرمت والله حرم عليكم دشينا الميتة بختها يودم ديق مصفوحة أسجنا والله حرمي ولحم الخنزير دوفار كهرب كيسنا والله حرمي أيقوا عنا قالض ويستعمال صميدار بل مرة بدن بالغية ومسلمين تجور عدن يسود حجريان ودكامة الصومالية انت لك كانوا هرب RSC هرب جيل SC دوفار هرب كيكا كذا لأنه الدين ملا لمن كان طيب أيضاً والله حرمه وما شيءنا والله حرمه وهلا لوجو ورعو لوجو سوداء لغير الله الله عدنا هين به أسقح هو محي إله مجعي سمجعنا هين بالوجو ورعي ماشي بسم الله الله أكبر هاي بمجع كله أو عد كله تإله ده الوجو ورعي شيء سونا وحرام والمنخنقة تيعك سنتي أما مريك تكوب اختضاي أيضاً وحرام والموقودة تيل جنع جوينا أيضاً وحرام بختي هذا والمتردية الستيم الكسر عضينا أيضا وحرام ولا يتكحرم كل قد حرمت ويه حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم المتردية حرمت عليكم الموقودة حرمت عليكم المنخنقة ساسة ودن غنيا
والنطيحة تيلا هرديي أو سدا كل ما تينا أينا والله ذي كحرمي وما كنا والله ذي كحرمي أكل وعناي السبع دقاق إلا ما شيء ما هن ذكيت إلا ما كي ما هن ذكيت ما تجور عدينه جور عيسى أنت تسوق قرتنا سدا كقلتين وما كنا والله ذي كحرمي ذبيح لو جورعي على النصب صنم كي لو جورعي أو اسم الصنم لو جورعي أسجنا وايد كحرام maxaa farqiga u dhaxeeya wama uhilla li ghayri illaahi iyo ala nusub nusubku waa sanam uhilla li ghayri illaahina waa wax kasto ilaahay ghayrkiisa noqon kara aan sanam xataa ahayn waxa kale nusubka culimada qaar ku sheegan waa dhagaxaan kacbada agteeda oo la jirtayo neefka ay u gowrici jireen oo ay ku dulqali jireen oo dhiigiisa ku shubi jireen waa isla midkii bay noqonaysaa wa an tastaqsimu inaad ku qayb dalabtaana waa la idinka xarimay بالأزلام قريها وقريه أن صور شيء وأن بالله يوحى لهين ومتكود بي وحكو قران تحين ذلكم كيناس لصور شيء فسق ضاع كبحويا كه أرمها لصور شيء وقف كي سماية وقف ضاع إلهي كبحيوي اليوم ما أنت يئس ويكقوستين الذين كوا كفروا قالوا بي من دينكم دينتينا ويكقوستين وحيكقوستين إن الدين تا إذن كر عليانو تذكرون أي دين تكوض الريبان إني وضع الله يانا وكقوستين فلا تخشوه ما كبقيننا واخشوني إيقا بقاء أنيك اليوم ما أنت أكملت واندين لما يستر لكم إذن كدينكم دينتين أحكام تيسا فرائد شيسا وأتممت وحان لما يستري عليكم دوشينا نعمتي برواقضة إذا ورضيت وحان رالي إذن كغنقضوا إذن دورتي لكم إذن كالإسلام إسلام كدينا دينهان فمن غفك الضر اللو دباتقليا في مخمصة قاعدة دحديد قاعدة هاي صدرتي دا وحا لو دباتقليا فمن قفكي الضر لو دباتقليا في مخمصة قاعدة دحديد أما السبب كده وحا لو دباتقليا إنو بختي عنه غير متجانف حالو يهمدان او إيلانين دنبي لإثم دنبي فإن الله ألا غفور الله دافتان بدن ويه ووحو عنا وودافيا رحيم مدو نحريسنا يويه نحريسي سنة waxa kamid wuxuu horay uga xarimay markay daruuro u qabatay inuu u fasaxay طيب يسألونك waxay ku weydiinayaan maada maxayba uhilla loo baneeyay Allahum ayaga waa su'aal meesha taala qul waxaad ahda uhilla waxa la idin baneeyay lakum idinka at-tayyibat waxyaalaha wanaagsan wama kiina waa la idin baneeyay callamtum aad wax barteen min al-jawaarihi إن أياشا شقينا يحقوا ذا حالو كهذي مكلبين حاليهم كوا وحيقانا تعلمون حالات بريسان هن أيجا مما كي حقي علمكم وإذن بري الله قال فكلوا عنا مما كي حقي سأمسكنا إذن قبتين عليكم دشينه واذكروا حصى اسم الله ألا مجعس عليه دشيسه على إرساله مركز دريسا واتقوا الله لك بقى إن الله على سريع الحساب حسابتي سميدك دقدق يسوي آيادان يتيكه الرئيسي علاقة كدحيس يا ارتباط يسكو حرنانشو علاقة وحوي آياد هرما دابي قبلابة حرمت عليكم وحال إذن كحرم كذا وكذا وكذا وإلهي محرمات كيسوع دي بيوحي ويدين وايه محرمات وانا رقنايه محان وحلال مركز إلهي وحولية وحا كل هذا وحا إذين حلال الطيبات وحيالها وناكسن طيبات كأه الغرة حيستو أي إذين حلال كو وما علمت من الجوارح وحي أتكو أغارستان أيدي نشقينيسا الجوارح جوارح وحمنا أيجي مركا محا جوارح لو بحي وكواسب وشقينيا أيجي يكوي كالتاب الضغاقها وحي أتوابرتين مكلبين ومحي مكلبين وحوي وأي وحلا بري إياشي وحلا بري ويعني يوحي لم يتكلم من الكلب ولكن وإيال وحلا برا توابرا وحو قرآن كشيء تعلمونهن وبريسان وأي إذنكو أضوح برتين مركاسا هدنا وحلا إن بريا مما علمكم الله وحي إلهي إذن بري أو آداب تأغار سقع بعد إيجا بريسان مركاد إيجي سيدا وحو برتان markaad diraysaan baad magaca Ilaahay u qabanaysaan bismillaahi Allahu akbar baaleeda waana ku tababaranyahay waa dirta ay waxaad u dirsatay marka aygaas oo ku qabto xataa nafta haduu ka qaado waa ku xalaal birays uma baahna sababtoo ah
marka neefka la barayso naftu kama bixi jirin naftiina waa ka baxda bisinka ilaahna waa u qabata haddaad waxaan adigu qabsan weynada eega aad tababarata eyga tababarkiisa maxaa lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa dhowr qodob kow haddaad dirtid oo tiraahdo soco inuu soconayo istaag haddaad tiraahdo amarkaaga inuu qaadanayo wixii uu kuwa qabtana inuu sakaa cunin istaag markaad tiraahdo hadduu fariiso markaad tiraahdeedna uu kaco shaygan iisoo qabo markaad tiraahdeedna calooshii intii urku jirtahayd uu kala baxo nin rageed sidiisa u gabraarsanaya weeyaane ey adiga kuu tababaran ma aha wala fahmo qodobka eyga tababarkiisa marka taasaa lagu ogaadaa markaad dirtid waa inuu dirsamayo markaad istaajiso waa inuu istaagayo wuxuu kuwa qabtana waa inuusan kaa cunaynin maxaad la diraysaa bismillaahi allahu akbar sidaasaad marka ku cunaysaa khalaas haddii nolol aad ku soo gaartid bisinka adaa u qabsanayo waad gowracan hadduu asagu nafti ka sii qaadayna waxa weeyaan bismillaahi allahu akbar waa horaad u tiri isagaa midi kuu ah ilaahay wuxuu leeyahay fakuluu cuna مما كي حقي سواح كعنا أمسكنا إيدين قبتين عليكم دوشين وإنه أديك كوا قبتي لكن أسوأ هدو قبصده سلوا وان كرا أسوأ إنه قبصده وصنا أديك كوا قبن وإنه عنه هدو عني أديك كوا قبن هدو صعنينا أدو كوا قبت طيب إلهي وحي ليه واتقوا الله إلهي كبقى وهو إلهي واحد السجاء إلى لسان أحكامته إيجاس أدو حكودر سنة يسان يبسن وقبرشده يوحن ما داو أصل كهلبك وحرام إذا كأها نيف كان نقول تسكع عنتان واحد كحلا عشان إلهي سجاير عليه سريع الحساب إلهي إنه يهي حسابتي سميدي دقدق يسو وحلي هذا حساب ولا بشر هذا إسلهش توي دقدق علمي هذا حساب تان أقوان ولاده يقدرت يأود ولا بعض أمر هذا إسلهش وعقبته كاجا إيمان ميسو إلهي اللي بدي بقوله سبحانه وتعالى يسألونك وحي كويدين يعني ماذا محبا أحل له بني اللهم عليك هدي انت هر لغا حرمي قل واحد هذا أحل وحل إذين بني لكم إذين كالطيبات وحيا له ونكسن وما كينا ولا إذين بني علمتم أذ وحبرتين من الجوارح إياه مكلبين حال إيهين كوا وحل بري تعلمون حالات وحبريسان هن أيجا مما كي حقي سند وحكبريسان علمكم إذين بري الله وآدابته فكلوا عنا مما كي حقيسه أمسكنا أيدين قبتين عليكم دوشينا واذكروا حصى اسم الله إله مقعي عليه على إرساله مركا دريسا بسنك وقبتا وحلم إذا هداد قري يوحوين قانصي الليبة تكو غارسان يسيد واتقوا الله إله كبقى واتقوا الله إله كبقى إن الله على سريع الحساب الحساب كيسو ميدي دقدق يسويان اليوم ما أنت يحل وحل إذين بني لكم إذين كالطيبات وحيالها ونكسن وطعام الذين كوي عنتضنا والذين بني أوتوا للسياء الكتاب كتابك وحيالها سورة وخاص كلاتها هي أحكامتنا كمدة متردية دي نطيحة دي وحويان موقودة دي كل قد أرمها لصوشي وما أكل السبع وأن تستقسموا بالأزلام كل قد وحي كمتها أحكامتها سورة دي خاص كلاتها waxaa kamid ah ahkaamta suuradan ay khaas la tahay marka eeygan iyo ahkaamtu u tababaran yahay iyo bisinka loo qabanayo iyo ayada khaas la tahay quraanka meel kale lagu ma sheegin طيب اليوم ما انت يحل وحل يدين بني لكم idinka at-tayyibat waxyaalaha wanaagsan wa ta'amul ladina kuwi cuntadan maanta laga hadlay waa gowraci ogaada sababtu waxa weeye gowrac waxaan u leenahay gaal aan murtad ama aan ahlu kitaab ahayn oo mushrik ah hadduu canba ka iibiyo ma waxa leedahay xaraam waay ma fawaakihda iyo caanaha iyo waxa weeyaan jabatiga iyo waa iska caadi gaal iyo muslim baad ka iibsan طعامكان marka waa maxay ahlu kitaabka gooni loogu sheegay waa gowrac way wa ta'amul ladina kuwi gowracooda oo tulasiya alkitaaba kitaabka xillun halal budi idin yahay lakum idinka wa ta'amukum gowriciinana xillun halal buu yahay lahum ayaga wal muhsanatu kuwi dhowrsoona ee cafiifaadka ahaa ayagana waxa weey min almu'minaati mu'minaatka kamidana halal bi idin yihiin ayaguna والمحصنات كوي لا دوري او حرائرتها او من الذين كوي كميدا اوتوا لسيا الكتاب كتابك من قبلكم idinka hortiin ayagana guurkooda xalaal buu idin yahay ida goortii aataytumuhunna ayaga aatisan ujurahunna meherkooda muhsinina ragow xalaatihin kuwa dhowrsoon oo zinada ka dhowrsoon
غير مصافحين وأنزنا موقت الزني سنين ولا متخذي أخدان صاحب هوصادنا أن سمي سنين ومن روح يكفر قالوبة بالإيمان إيمان كغفكي كقالوبة فقد حبط وحا هوبطي عمله عمل كيسي صالحا يمركا كهر سمي واباباي وهو سونا في الآخرة آخرة دحديده من الخاسرين كوا خساري بكجرا هدو سيدا كدنتو آياداني وحينا بريسا تيه هورا وحي كلامي تهورتا إلهي طيباتك إنو حلاليي وحي كقدو وانتهي ومدى أهل كتابك اللو يقانو يهوديا كريستانكا لبا وحيالودو أيقو إهليهين لبا دبا إني حلال إنو يهين لبا دا ميتك كوباد وحوي وحي أي قورعان سببتو وامحي بسنك يوقف صدان وحي قورعان أيقو بلا فهم قضبك وحي أهل كتابكو أي قورعدان قورعدو وإنو بنايه haddaan ognahay inuu ahlu kitaab gowracay laakiin bisinka uu samo qaban ma cunayno sababtu waxa weeye adoo muslima haddaan ku ogahay maanta neefkaad gowracday bisinka inaadan u qaban miyaan cunaya isku mid baan dhankaas laakiin adigu bisinka ay u qabsadaan wixii ahlu kitaabku ay gowracaan marka waa cunaynaa kow dumarkoodana waa guursan karnaa dumarkooda markaan guursanayna ahlu kitaabka ayagana shuruud baa laga rabaa ninka muslimka ah ee gabar ahlu kitaab guursanayana shuruud baa laga rabaa ninka waxa laga rabaa laba sharti saddex sharti baa laga rabaa shartiga koobaad waxa weeye horta waa inuu yahay غير musaafix waa maxay zina muuqata oo calan oo kilaabyada uu ku tubto oo umadooda ogtahay waa inuusan zinaysan mid uu luqluq la galo la dhuuntana waa inuusan zinaysan mutakhidi akhdaan wey soo laba qodob ma gabadhan uu guursanayna meherkeeda waa inuu siiyo gaashiba xataa waxa lagu leeyahay marka guursanaysa meherkeeda si midda muslimadda maxaad umaysaa marka aad meherlaanta isaga qabti waa iga jagan doontaa la oran leeyahay ku boqolsoon sheegahay طيب saddexda adiga laga rabaa ayada maxaa laga rabaa inay tahay gabar dhowrsoon ayadoo gaala waxa jira dumar dhowrsoon cafiifaad ah oo gabarnimadooda baaqi ku ah oo aan zinaysan oo aan saqajaanimada iyo gogol dhaafka iyo aqoonin baa jira inay gabdhahaas tahay weeyaan wa ilaa hadii kale horta muxsanku waa maxay waa qof dhowrsoon muxuu ku dhowrsoon yahay hadda markaad gabar guursatid dareenkaaga shahwaaneed ayada ku gudatood ku dhowrsatid marba hadaysan ayadu ku qancinaynin oo ayadii wax weyn aad ka zinaysanaysid oo mid kale ka zinaysanaysid ayadii guursanaysid oo mid kale ta ka sii zinaysanaysid wixii dhow isku dhex wadeed hatta nin waxa nin imtixaanaad muxsan ma tihid ayadii haday adna gogosha ku jiifto oo aad u galmoonaysid saaxiibo kalena ay wadato leedahay idinkuna kaalaya ta muxsanad ma aha qof guur ku dhowrsoon ma ahane balaayo aafaysan oo shaqaysanaysa weeyaan marka ayadana waxa laga rabaa dhowrsooni adigana waxa laga rabaa dhowrsooni intaas la rabaa ilaahi ba ahkaamta inoo jiday wuxuu leeyahay waman yakfur bil iimaani iimaanka noocaas qofkii ku gaalooba markuu qaatay ka bacdi ka gaalooba laba qodob baa isugu darsan adduunka wuxuu amal sameeyay waa ka bura ajr ya hasanad midna uga ma qorna aakhira markuu tagan cadaab galaya al-yawma maanta uhilla waxa la idin baneeyay lakum idinka at-tayyibatu waxyaalaha wanaagsan wa ta'aamul ladina kuwi cuntooyinkooda iyo gowracooda oo tuul siya al-kitaaba kitaabkana حل حلال بدينها لكم إذنك وطعامكم إذنك عنتدينا أيوة يعنيان حل حلال بيوتها اللهم أيك والمحصنات كوي لدوري من المؤمنات قبلها مؤمنات كحرتها كمدها ومؤمنات حرة ومدى النبي محمد أيقنا حلال بدينه وجورسدة والمحصنات كوي حرتها هنا وجورسدة ومن الذين كوي كمدا أوتوا السياء الكتاب كتابك من قبلكم إذنك هرتين إذا قرتي أتيتموهن أتيسان أجورهن مهر كوده محسنين حالاتهم كو غورسن يو كو دورسون غير مصافحين حالاتهم كو زنا وحويان موقتو علن ان زني سنين ولا متخذي أخدان صاحب هوسان ان سمي سنين ومن روح يكفر ربا waxaan u soo sheegnaa safaaxa waxa loo yaqaan asab shubitaanka shayga la shubo qofka zaaniga ahi waxa ugu weyn uu ku fakarayo shahwadan dhibaysan iska shuba way bas awlaad kama rabo dhowrsooni kama rabo ajar kama rabo caruur allah kaasiya kama rabo bal waxa laga yaabaa edis balayaan la aqoon oo ka qaato akbaru hami qofka zaaniga ugu waa maxay biyahan ku dhibaya iska shub bas uu iska shubin uu ka tagaa soo islaanta lacanada ayaa laga yaabaa ayana way shahwa gudan way shubaysaa teeda way dhaqaajin safaax waa taas marka dhaqan xun weeyaan ومن روحي يكفر قالوبا بالإيمان إيمانك الروحي كقالوبا فقد حبط وهو عمله عمل كيس وهو صونا من الخاسرين كوا خساري كمديا في الآخرة آخرة حديدة يا أيها الذين كوا آمنوا حق الرميو
إذا قرتي قمتم أدو استهاجيسان إلى صلاة فاغسلوا مير وجوهكم وجياشينا ويديكم كعمهنا إلى المرافق حصول هذا لقى جاريو وامسحوا مسح برؤوسكم مدحياشين وأرجلكم لقيهنا ميرا إلى الكعبين قوية لقى جاريو وإن كنتم هداتهين جنوبا كوا جنابا قبا فالطهروا طهارة قاتا وإن كنتم هداتهين مرضى كوا حنوسا أو على سفر أما السعودال دوشي كسوغان أو جاء أما يماذا أحد قفوا منكم إذن كامدا من الغائط ميلها لو كرتغو أو لامستم أما أدوغ الموتان النساء دمركا أو فلم تجدوا إذا هل الماء بيو فتيمموا أقصد سعيدا عرو طيبا وناكسا فامسحوا مريا بوجوهكم وجياشينيو ويديكم قعمهن منه من التراب عرض حق هذا وحكم مريا ما يريد مدون يا الله ألا ليجعل إنه يالا عليكم دوشينا من حرج وحدب إذن لدون مايو ولكن يريد وحو إذن لدون إياه ليطهركم إنه إذن طهره إيا وليتم إنه لما يستر نعمته برواقوين كيس عليكم دوشينا إيا ولعلكم إنا تشكرون الشكردان آيادا آية الوضوء لو يقانا waxay ka mid tahay ahkaamta suuraddan ay khaas la tahay weysadii oo dhameystiran bay ka hadash طبعا waxaa ka horeeya niyaduna meesha ku jirtaayo ida qumtum ila salaati salaada markaad u kacaysaan waa iraada iyo niyo marka salaada u istaagaysid waxaad mayraysaan wajigeena iyo gacmihiina iyo lugihiina madaxaad masaxaysaan gacmaha dhaqitaanka la mayro anqawiyadaad geenaysaan waxa ka wada suxulada lugaha mayritaanka la mayrana anqawiyadaad geenaysaan waa marka weysadii oo dhameystiran weeyaan quraanka meel kale oo sidaan looga hadlay ma jirto hadii qofku janaabo uu qaba iyo hadii kalena way ka hadash culimadu waxay isku khilaafeen madaxa suuradani waxay sheegtay in la masaxayo qadarka waajibka ah la masaxaya intee dhan yahay al-Imam Malik iyo Imam Ahmad waxay leeyihiin waxa waajiba madaxo dhan in la masaxo sida wajigaba marka la tayamumayo wajigo dhan in la masaxayo waajib u tahay baa madaxa marka la masaxayana in la wada masaxay waajib u tahay yiraahdeen Abu Hanifa wuxuu leeyahay afar meelood marka loo dhiga madaxa hal meelo kamid oo rubuc aad masaxaysa inta kala faraaqaqa Imam Shafi'i wuxuu leeyahay rahmatullahi alayhi wax kasto oo masax la oran karo ayaad masaxi kartaa farta hadaad inta qoysatid saas sumeena odayaal yiraahdo mid arki jiray saas yiraahdo oo ku banaantay Imam Shafi'i soo qaba tahaaraduna culimadu waxay leeyihiin afar bay u qaybsantaa mar waa weyso suurad waa ka ayad waa ka hadash marna waa ghusli iyo mayritaan ayana waa ka hadash marna waa tayammum iyo gabagabaysi way ka hadashay marna waa izaalatu najaasa inaad iska zuulisid ah oo isdaahirisid wala waaba ku tukan hadaad doontida ayadu waxa dhan waa ka hashafa taharu ma la fahmo weysadii gabagabaysigii qubaysigii dhaqitaanka caadiga ah inta way ka hadash bal baydawi tafsiirkiisa wuxuu leeyahay aayadan markuu fiiriyay waxa ku sugan aayadan oo ay kulansantay 7 arimood oo 7 laba yihiin bi aayadan ka hadlaysay waa 7 arimood 7 waa laba wuxuu ka bilaaba wuxuu leeyahay waxay ka hadlaysaa aayadan shay asal ah iyo shay asalkii bedelka ah waa maxaad u malanaysaa weysadii iyo hadaad weysadii wada maxaa bedelkeeda ah gabagabaysiga Soomaha waa labo koow wuxuu leeyahay shayga asalka aha asalku ka aha soo biyaha ma ahayn baa hadana laba u qaybsama bi mustawcib jirko dhan aad ku camimaysid iyo shay aan mustawcib ahayn oo jirko dhan aad ku camimaynin biyaha mar raba lagu qabaystaayo jirko dhan baa la gaarsiiyaa markay weysan noqotana jirka qayb kamid ah lagu dhaqdaa labadaba waa ka hadashay suuradu ma qad haysaa afar soo ma haysid wuxuu ku leeyahay shaygii qayru mustawcibka ah ee waxa ka wada shaygii markii la fiiriyo wuxuu leeyahay shaygii mustawcibka ah qayru mustawcibki wuxuu leeyahay qayru mustawcibka soo kii aan jirko dhan camimayn ma aha baa wuxuu u qaybsamaa ghusli iyo masax weysadii kaligeed ahayd baa qaybna ghusli tahay qaybna masax tahay madaxa maxaa loo sameeyaa wala masaxa gacanta iyo lugaha iyo wajigayana waa dhaqi mustawcibkii marka غير مستوعب كي labada u qaybsamaya masax iyo ghusli ya ka iimaanaya bi
marka la fiiriyo xagga maxalka waa qayb maxduud oo maxalkeedu uu xadidan yahay maxalka marka la fiiriyo tii hore ficilkay ahay xagga maxalka marka la fiiriyo waa maxal maxduud ah iyo maxal aan maxduud ahayn maxal aan maxduud ahayn oo de hadda markii la qubaysanayo waxa way de maxduud ma aha jirka dhan baad maqrina marka kale tan waa qayb xadidan mar labaad ba hadana la qaybinaya dahaaradii buu ka hadlaya waxa loo qaybinayaa buu leeyahay waxa lagu dahaara qaato shay qoyaan oo dareera oo maayac ah iyo wax qalalan biyuhu waa maayac ciida lagu gabagabaysanayana wax qalalan labadaba waa isla dahaaradii shay qoyan iyo shay qalalan marra waxa laga fiirinayaa waxa sideedaba qubays iyo weysaba waajibiya waa maxay waa xadathkiiba hadana laba u qaybsama mid weyn oo kii weyse waajib qubays waajibinaya gabar xayd qabta mid umushay qof janaaba qaba soo xadath ma muxuu waajibinayaa qubays iyo mid waajibinaya weyso neef gadaal ka timid iyo waxa weeyaan qofkii oo seexday iyo kaadi iyo saxara iyo wa xadathul asghar baa loo yaqaan laba wuxuu leeyahay labadiba wali sii wada maxaa banayn kara oo ku banayn kara inaad biyaha asalka ka leexatid oo bedelkooda aadid aayadu waxay sheegtay laba qodob maxay yihiin almaradu wa safar soo ayadu ma sheegin labada qodob haday jirto midkiin xanuunsan yahay ama uu safar ka yimaado ayadana waa sheegtay waxay ku gabagabaysaa aayadu laba qodob waa maxay arrimaha la soo sheegay hadii la sameeyo ilaahay wuxuu ka ballan qaaday laba qodob oo inuu dambiga ka tahiro nicmadiisana ku dhameystiro maxay ayadu ku gabagabowday ولكن يريد ليطهركم محيد كطهيريا من الذنوب وليتم نعمته عليكم انت اساس سميس لبا سو كلكم ودا دمان لبا ساسي كو دمان بيضاو تفسير كيس سيده سمريا يا ايها الذين كوا امنوا حق الرميو اذا قمتم مركدوا استاغيسان الى صلاه مركدوا استاغيسان مركاسا ويس كو واجبيسا سيده راجحه فاغسلوا ميرا وجوهكم وجياشين marka leenahay salaada markaad u istaagaysaa weysa ku waajibaysaa wahdaadan weysa qabin laakiin hore hadaad u weysa qabti salaadi baa loo istaaga hadana meen dhooydan maqlay markii loo istaagayo ku waajibaysaa oo soo weysanaya may marka salaada loo aqimayo hadaadan weysa qabin salaadina aad tukanaysid waajib waxa ku inaad weysisatid laakiin hadaad hore u weysa qabtay taa weysa qabtaa faqsilu wujuhakum wajiyashina mayra wa idiyakum gacmihiina mayra gacmaha xagee la gaarsiinaya إلى المرافق السحول هذا لا يجاره سحول أم حصل وصف عن وذا جارتي ولبا وامسحوا مسح بالرؤوسكم ماذا حيادي إن أنا مسح كل يوم وذا مسحها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجلكم وأكره دجانتا حجابه كعد فانتهاي فاغسلوا وجوهكم سمكر دجنين وأرجلكم واغسلوا أرجلكم هل كاس كعد فانته لقيه إن أنا ميرا إلى الكعبين أقوياء لا جاري وإن كنتم هداتهم جنوبا كوجنا بقبه وحدث الأكبر فطهروا طهارة قاتا هذا جنابة قبطان جنابة كم ما يرتوي وكقبيستا وإن كنتم هداتهين مرضا كوحنوسا هدات وإن كنتم هداتهين مرضى كوحنوسا أو على سفر أما السعودال دوشي كسوغان سفر كيمي مسافرين باتهين أو جاء مؤي ماذا أحد قف ومنكم إذن كإذن كمدا من الغائط meelihii loo kortagayay buu ka yimid oo xadath baa ku dhacay aw laamastum ama adu galmootaan an nisaa dumarka oo falam tajidu idan helin ma anbiyo ama xaqiiqa ahaan baadan biyo u haynin ama biyo waad haysaa laakiin xayawaan muxtarama ayaa meesha joogo aan ka maarmin naftuna ka baxayso waatiin wadna waad ka gabagabaysan ama biyo waad haysataa xayawaan muxtaramuna meesha ma yaale adaa lafaha uga baqayo waxaad isleedahay hadaad biyahan isticmaashid ويسي يقبيس نفطها بكابة حسابا أو فلم تجدوا إذا هل الماء بي فتيمموا أقصد صعيدا عيد طيبا أو وناكسا وقبيست فامصحوا مسحا بوجوهكم وجهنا وأيديكم قعمهن منه سعيد كحقي سواء كما مسح وعجيب لبدا كليا مسح حتى الجنابه هذا غبت ما هنا عيد يذكر رجيسين هذا الجنابه قبل يديق قبتها ربطين أي كقبيست مركزين بيها يسن أما بيه استعمال كذي كعاجستو لبدا قعمود بعيد كل فلانيسا وجهي قعمه مرسانيسا بس خلاص يا ماذا ويسما ما ودي ما وكو فلان انت ساكو فلان
ما يريد الله ألا إذن لدون ما يريد مدون يا الله ألا ليجعل إنو يالو عليكم دشين من حرج وحدب وامحي إلهي دب إذن لمرحب وحن صامر وحلا إنا حرمي يا وحلا إنا فريس وصاص ما إلهي مركو أمر كإنا السيني وح أينان أودين إلهي إنو مضل صارين مركو وح إنا قريبينا وح إنان إسكد ينكرين إلهي إنا قمر ريبينه وحلا إنا قريبي وحن إسكد ينكر وصاص ما إلهي مركز سبحانه وتعالى وحليس إذن لمرهبه ما يريد الله ليجعل مدون إنو يالو عليكم دشنا من حرج وحدبه ولكن يريد وحدون ليطهركم إنو إذن طهره محو إذن كطهر من الذنوب إيا وليتم إنو لما يستر نعمته برواقويكيس عليكم دشنا أو خير كإذن قارسيه لعلكم ستشكرون أو شكر ذا واذكروا حصوصتا نعمة الله إلهي برواقويكي عليكم دشنا ويالي وميثاقه بلنكي سنة حصوصتا الذي بلنكا سو واثقكم وإذن كلا بلمي به أسقه إذ وقت قلتم أتراهدين سمعنا وان مقالي وأطعنا وان يالي واتقوا الله لك بقى إن الله ألي عليم إلهي أقويان حقال واه بذات السدور لابها وحا صاحب كاتكو قرين إيسان إلهي وأقيها آيادان إلهي وحو إنا حصوصينيه أو إنا بريه إلهي نمعوينكيسا إنaynu xasuusanno oo inaan mar iloobin ballankii Ilaahay horay inoo qaaday inagoo dhabarka nabi aadan ku jirnay inaan iloobin oo waliba aan samicnaa wa ata'na ilaahu waan ku maqalay waana ka yeela warkaas wattaqullaha inna allaha aliimun bidaati sudur ilaahay iska ilaaliyo xuduudiisa iska jira wadhkuru xusuusta nicmatallahi barwaaqada alle alaykum dushina uu yeelay wa miithaaqahu ballankiisina xusuusta alladhi kaasoo waathaqakum oo idin kula ballamay bihi asaga إذ وقت قلتم أتراهدين سمعنا وان مقلو واطعنا وان يلي واتقوا الله الله كبقوا اسكي إلى لي بلن كيساسنا تكبحدان إن الله الله عليم إلهي حقوقاله آدو يقانوي بذات السدور حبتك قوة صاحبك لمعنى الله بتوحوا صاحبك إلهي وقرنا يقولون هذا كتيره يا أيها الذين كوا آمنوا حق الرميو كونوا أهذا قوامين كوا أتاغا لله عليه شهداء كوا مرخاتئة بالقسط ولبع عدالة كمرخاتكعة ولا يجرمنكم ينا إذن كو حنبارين شنآن قوم قلن عيب كود على ألا تعدلوا إن إذن عدالة سمين اعدلوا عدالة سمية هو عدالة سمين تاس أي أقربوا دوان شبدا للتقوى الله كعبسك واتقوا الله الله كبغى إن الله ألا خبير إلهي حقال وأويه بما وحا تعملون أصبين إنسان وحو إلهي هل كان إنا بريه markuu ilaahay xagga ina soo baray wuxuu inoo jideeyo la inaga rabo buu halkaana ilaahay wuxuu ina barayaa waxa xaq ah oo ilaahay inuu leeyahay iyo xuquuqda khalqigu inuu leeyahay labadaba aydan waa inoo sheegtay xaqa ilaahay waxa kamid ah kunu qawaamina lillah ilaahay darti kuwa u taagan inaynu noqono waa xaqullah shuhadaa bil qistina waa xaq khalqigu kulli qof bani aadam hadaad u marxaati furaysid ama aad ku marxaati furaysid labadaba waa inaad noqotid qof caadil ah wuxuu ka marxaati kacayo caadil ku ah bani aadamka ilaahay wuxuu ina baray ina amray qoliyo gaala ah oo waajib ay tahay in la nibcaado nacaybka aan nacib tahay shariicadu ku banayn mayso inaad xad gudub ku sameeysi hadaa jihaadaysid oo aad la dagaalamaysa xataa waxa lagu leeyahay sarwajiga ha ka siibin sanka ha ka jarin faruriyaha ka gowgeynin dhakarka ha ka jarin xad gudub baa lagu leeyahay adiyo la dagaalamaya saa lagu leeyahay marka shariicadeenu ilaahay subxaanahu wa ta'ala shariicadu koonkan u doortay weeyaan wax ka fiican oo ka naseexa badan oo ka nazaaha badan oo khalqiga uga fiican uma jirto ilaahay wuxuu ina barayaa i'dilu huwa aqrabu littaqwa inaad cadaalad samaysid oo naftaada xataa aad ka cadaalad samaysid uunkana u cadaalad samaysid ayaa waxay u dhawaansho badan tahay ilaahay in laga boqo إلهي أيضا وحكو جبجبية خبير بما تعملون ووعيد وهنجبات خبير بما تعملون وعد أو بلنقات الله مضبا سيكوتها خبير بما تعملون ويانو هدينو وحوانا أكسان سمينو إلهي وحو كلية وانكوغها يوابال كيدا انكو دياري حداد وحن سمي سيدنا إلهي وحو كلية وانكوغها يوعقاب كيدان أوده مركا وعد ووعيد الله مضبا وميش وكو كلا سيئين يا أيها الذين كوا أمنوا حق الرميو كونوا أهذا قوامين كوا استاجد بدن لله إله درتيس كوا إله درتي أتاجن حقوق السئلالنا شهداء كمرخاتك بالقسط عدالة
walaa yajrimannakum yaysa idinku xambaarin shana'aanu qowmin qola nacaybkooda gaalo ah calaa an laa tacdiluu inaydaan cadaalad samayn nacaybka gaaladu yuusan idinku xambaarin icdiluu cadaalad sameeya huwa cadligaas ayaa aqrabu u dhowaansho badan litaqwa alla ka cabsiga wattaqullaha alla ka baqa in allaha alla khabiirun ilaahay xoogaal waa weeye bimaa waxa tacmaluuna aad samaynaysaan wacadda wuxuu u ballanqaaday allaahu alle aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan ilaahay wuxuu u ballanqaaday muxuu u ballanqaaday aljannata mafcuulka meesha ka go-an jannu ilaahay u ballanqaada lahum ayaga waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun abaal cadiimun ee weyn waladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna ulaa'ika kuwaasu asxaabuuljaxiimi naarta jaxiimo asxaabteedii wey dariiqii qur-aanku ina soo barayo mahaanida ahaa ahlu naarka in laga warramo ahlu jannaha laga warramo ahlul iimaankana laga warramo ahlul kufrigana laga warramo la isbarbar dhigo si ahlul iimaankana aad ugu dayatid ahlul kufrigana aad uga fogaatid si jannada aad ugu shaqaysatid naarta ilaahayna aad uga fogaatid dariiqii buu qur-aanku baraya ilaahay ballan buu qaada ballankana kama baxo ballankuu qaaday waxa weeye laba waxyaaloo dadka laga helay iimaan sax ah iyo camal saalixa labadaa dadka laga helay ilaahay wuxuu u diyaariyey janno maqfiro oo dambi dhaaf ah iyo ajar intuu dhan yahay ilaahay mooye cid garanaysa aysan jirin oo ilaahay uu ku magacaabay ajrun cadiimun ajar weyn ilaahigii weynaabay agtiisa ka weyn yihiin oo weyni ku magacaabay qolyahaasi marka waa qolyo mu'miniin oo wanaagsan wacada allaahu alla wuxuu u ballanqaaday aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan aljannata janno u ballanqaaday lahum ayaga waxaa u sugnaaday maqfiratun dembi dhaaf maqfirada waxaa la yidhahdaa dembigii aad gashay ilaahay inuu dadka ka asturo inaad dembigan gashay dadku aysan ku ogeyn ilaahigii ku ogaana uu kuu dhaafo sida ogeed markaad leedahay astaqfirullah macnaheedu waxa weeye ilaahu ceebta anigu aan leeyahay iyo dunuubtayda dadka ka qari ilaahu adiguna ii dhaaf nabigaana sheegay sal alla alih wasalam sidaas oo wuxuu yidhi markii qiyaamada ilaahay dadka uu isu keeno mu'minka intuu gooni ugu yeero wuxuu leeyahay dembiga noocaan iyo noocaana ma samaysa markaasuu leeyahay nacam kan ma samaysa markuu dunuubtiisii wada arko oo uu is yidhaahda alileh maanta waa kuu dhammaata baa ilaahay wuxuu odhanayaa adduunyada markaan joogayna anaa kuu qariyey waxaanoo dembiga inaad gasho cidna kama warqabin maantana waa kuu dhaafay or soco jannada kale baa la odhanaya waladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna u fiirsa marka waa laba waxyaalood ilaahayna waa ku gaaloobeen aayaadkiisii kuwa sharciga ama ha noqdeen ama kuwa kownigaana waa beeniyeen ulaa'ika kuwaasi asxaabuuljaxiimi naarta jaxiimo asxaabteeda iyo ehelkeeda weeyaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyo udkuruu xusuusta nicmatallaahi ilaahay barwaaqooyinkiisa nicma waa mufrad waa la idaafeeyey cumuum bay faa'iideynaysaa nicmatallaahi markaan macnayna waa inaga dheh ilaahay barwaaqooyinkiisa calaykum dushiinna uu yeelay id wakti hamma ay damceen qowmun qolo an yabsutuu inay soo taagaan ilaykum xaggiinna aydiyahum gacmahooda oo ay gacanta idinla tagaan fa kafa ilaahay wuu reebay aydiyahum gacmahoodii cankum xaggiinnu allah idinka qabtay wattaqullaaha alla ka baqa wa calallaahi alla dushiisa oo keli ah falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna dadka mu'miniinta ah waxaa isweydiin mudan aayaadkii horaan waxaan ku soo marnay ilaahay nimcooyinkiisa xasuusta wadkuruu nicmatallaahi calaykum somaynaa soo marin tanna maxay sheegaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu udkuruu nicmatallaahi calaykum maxaa farqiga u dhexeeya aayaddii hore iyo tan hal farqi baa u dhexeeya muxuu yahaa aayaddii hore waxay ka hadlaysay wadkurullaaha ilaahay wadkuruu xusuusta nicmatallaahi ilaahay barwaaqooyinkiisoo ah khayrka ilaahay idin soo gaarsiiyo islaamnimada ah waa khayr la idin soo gaarsiiyo islaamnimada ah ilaahay ku xusuusta ma la fahmo qodobka tanina waxa weeye udkuruu xusuusta nicmatallaahi ilaahay barwaaqooyinkiisa calaykum dushiinna uu yeelay oo ah rafcu darar dhibaatadii gaaladu idinku hayso idinku soo farabaxsanaysay ilaahay inuu idinka qabtay soo laba barwaaqa ma khayrku soo gaaro islaamnimo ah iyo shar kugu soo socdo gaalaha ilaahay gacmahoodii uu kaa qabtay labaduba waa barwaaqe labaduba ilaahay ku xusuusta id waqti hamma ay damceen qowmun qolo an yabsutuu inay soo taagaan ilaykum xaggiinna aydiyahum gacmahooda
oo idin laayaan oo idin dilaan bay damceen oo idin fitneeyaan maxaa dhacay marka ay gacmaha soo taageen markay gacmaha soo taageen fa kaffa wuu reebay aydiyahum gacmahooda alle cankum xaggiinoo ilaahay baa idinka reebay ilaahay baa idinka badbaadiyey waxay idinla doonayeen buu u hirgelin waaye wattaqullaha laka baqa wacala allaahi alla dushiisa oo keli ah falyatawakkal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniintu wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi